بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدشنات كو عمران يا سوق بنقابيين جدد دورشوين كقرنكو مدحدي قبل كي دقمده يا مدحدي قرنكا يا مدحدي حسبية دبي كسوق غيب قلين عادنا وصول وين يا ددوينها شوقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن شعلها إن كوي كاتو حفلة مناسبة ده waxaa dadka yagan ka yimi gobolada kale wax ka soo jeeda gobolkan iyo waxaan ka soo jeedin wax xisbiyada iyo waxaan ahayn waxaanu u nimi inaanu xoojinno dhambaalka ah iyo fariinta ah in la gaadhsiiyo dadweynaha reer Sanaag inay sabtida oo bisha 12 tahay gobolka ka bilaabmi doonto iyo gobolka Soolba kaar qaybintii codbixiyayaasha. waxaan sidii horeba loo yidhi annaan la raacsanahay anigoo oo ka mid ah dadka gobolka ka soo jeeda aynuna saluugsanayn tiradii aynu ku gallay markii hore diiwaangelinta kana xunnahay in badan oo gobolkeenna ka mid ihi inaanay nasiib u helin inay diiwaangelintaa gasho dhaawacaynu ku yaalna ay tahay oo ay ahayd inaynu tiro xoog la aynu kaga qayb gallo oo kula tartanno gobollada. aad baan u taageerayaa intaynu diiwaangelinta gashay inaynu ku dadaallo inaynu qaadanno kaararka. waxaan ku baraarujinayaa dadweynaha reer Sanaag dhalinyarada komishanka u shaqaynaysa qaybinaysa kaararka in goobaha ay joogaan ee tagaana lagu soo dhoweeyo lala shaqeeyo lagu taageero shaqadooda lagana daayo faragelinta. waa dhalinyaro jaamacadaha ku jirta qaarkoodna ka baxeen mustaqbalkoodii uu bilow yahay waa la dhaariyey waddanka waxyaabaha ugu badan inay helay waa dhaarjeednimo. dad badan oo inta xilal loo dhaariyo wixii laga dhaariyey ku kaca ayaa dhibaatooyinka maanta in haysata ka mid ah ee abaaraha iyo wata. waxaan leeyahay dhalinyarada cusub ee mustaqbalkoodu furan yahay inay ka galaan kaadhka musuqmaasuqa ay ka galaan cida aan lahayn ay siiyaan yaan dadweynuhu yaanay ku riixin yaanay ku khasbin ha lagu taageero sidii loo dhaariyey iyo qaabkii loogu talagalay inay u bixiyaan ha lagu taageero ha lagu saacido. waxaan leeyahay gobolka Sanaag waa ayaandaro maanta in laynu ku nisbeeyo gobol aan xasiloonidiisu ay liidato nabadgelyadiisu ay liidato 25 sannadood halka maamul ka jiray in maanta laynu yaaho waa gobol duruufo gaar ah haystaan abaariya la galay laakiin maanta in xasilooni darro iyo nabadgelyo darro aynu tilmaan u noqono aad iyo aad baynu uga xunnahay. waxaan soo jeedinayaa degmooyinka Ceergaabo iyo Garadag iyo qaybaha kale Ceelaf Weyn shaqaaqada ka dhacday qayb ka mid ah degmada Ceelaf Weyn inaynu u guntanno oo marka hore aynu ku talagalno halka ay joogto inaanay dhaafin mar labaadkana inaynu laga gaadho xal waara oo walaaltinimo in laga gaadho. waxaa maanta gaar ahaan inoo faran in aynu goobaha ay khusayso dhibaatadu aynu ka qayb gallo dadkaasi sidii ay kaadharkii u heli lahaayeen baa ina faran oo ay tahay inaynu kala shaqayno oo aynu ku taageero. waxaan jecelahay inay dhammaato in Sanaag ay ku sufowdo xaalado nabadgelyo darro inay ku sufowdo oo berito ka maalin dhaawac ku noqon karta muuqaalkeenna iyo sumcaddeenna iyo gobolnimadeena ku noqon karta. haddaan intaa ka gudbo waxaan halkan barasaa baa joogi jiray Yuusuf Ciise Tallaabo la odhan jiray 29kii dhalinyaro wadaadda baa reer Ceergaabo ciyaarta jecel yihiinoo waxay yidhaahdeen ciyaartu waa xaaraan ciyaarta hala joojiyo. wuxuu yidhi waa nimanka Soomaalida hobol baa dhalee iska daaya ta u taag heli maysaanoo ciyaarta dayn maayaane hobol baa dhalay Soomaalida iska daaya. horta annagu waa u hoggaansannahay go'aankii komishanka ee ahayd xafladaha hala joojiyo laakiin Soomaalida hobol baa dhalay si aanigu markay durbaan maqlaan waa soo boodayaane waxana inta badan iyaga watee
ولما يانو وحلا يدرانك وده أهل يسجد دايو هداني عندنا وحنا كل يريني وحن مرة بعد أن هذا غياه ددوينها رير سناك وحن كل يرينا يعني كهارك قاطان وحن لا هاي من فضلكم ومستقبل كيني وهنت آليدهين وآيهين ما هم أنت كليه وننا مدحونا كدوران إنسانه دad idinka idinka mid ah ayaa ku dooranaysaan kelmaddan kaga tegaya waxa weeye insha allahu tacaala tanta xigta dad badan iyo murashaxiin badan oo reer sanaaga oo xafladdan ay isugu yimaada oo madaxtinimada dalka u tartama ayaynu ku soo dhoweyn doonaa reer sanaaga ku talagalaan inay maalintooda iyaguna qaataan aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu حسن ومحسن يهي